saddex shay baa la yidhi ummaduhu way ku dumaan saddexda ummaduhu way ku horumaraan oo way ku dhismaan saddexda ummaduhu ay ku horumaraan waxa weeyaan waa runta iyo ammaanada iyo cadaaladda saddexda ummaduhu way ku dhismaan ninkii doonay inuu ummad dhiso ninkii doonay qoys inuu dhiso ninkii doonay mujtamac inuu wax u taro bay culimmadu leeyihiin saddexdaa khasladood waa in laga helaa ammaano waa in laga helaa waxa lagu dhiibay ama reerkaaga ha noqoto ila nin walba reerkiisa waa ka mas'uul ama meherad qof leeyahay ha noqoto ama mas'uuliyad hoose ha noqoto ama mas'uuliyad ummadeed ha noqotee wixii lagu dhiibay waa in sideeda lagugu yimaadaa waayo ilaahay baa ku arkaya oo ku maqlaya amaana iyo sidqi waa inuu yeeshaa qofka muslimku sidq dadka run uu sheeg waligaa been ha sheegin oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam saxaabadu waxay ku yiraahdeen yaa rasuulallah ninka muuminku fulo ma noqon karaa haa waa noqon karaa buu rasuulku yidhi ninka muuminku ma aragtaanay bakhayl ma noqon karaa uu noqon karaa buu rasuulku yidhi markaa baa nebiga lagu yidhi nebi allow ninka muuminku beenaale ma noqon karaa markaa buu nebigu yidhi muuminku beenaale ma noqon kara buu yidhi iimaanka iyo beentu isma galaan ammaano waa inuu qofka muslimku yeeshaa sidqi waa inuu yeeshaa uu noqda run sheege asidqu طمأنينة أبو نبي والكذب ريبة بنت قفك الشك بيكو أبورتا شكي iyo waswaasi cabsi bay ku abuurtaa halka runtana qofka muuminka ay siisa maaragtana nabad uu ku helo cadaaladna qofka muslimku waa inuu yeeshaa cadaalad labada ilmoodeed wada dhashay baa la rabaa inaad u cadaalad samaysid halka ba shariicada islaamku cadaaladda ka bilowday saxaabi baa nabi maxamed uu la yimiday inankiisii buu wadaa farasna uu wadaa markaa buu yaa rasuulallah wiilkan waa wiilkaygii caruurta asagaan ugu jecelahay faraskana isagaan u hadiyay buu ka yidhi markaa buu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi walaalihiisii isaga la dhalatayna ma wada siisay fardahaasoo kale ma wada siisay maya ma siina laakiin isagaa akhlaaq wanaagsanoo isagaan la jeclaaday markaa buu nabigu yidhi waryaa ama wada sii ama ka daa buu nabigu ku yidhi anigu dulmi mara ka noqon maayo buu nabigu yidhi markhaati ka noqon maayo dulmigaad samaynaysa labada ilmoodeed wada dhashay ayay shareecadu ku leedahay u cadaalad samee oo ka ha u kala eexanin hadday noqoto wax siina dhaxal bay leeyihiin oo dhaxalkana looma dardaarmee nin walba dhaxalkiisu wuxuu qaadanaya suuratu nisaa iyo suuratu albaqara ilaahay jalla wacala uu kaga warramay saddexna ummaduhu way ku dumaan saddexda ummaduhu ay ku baaba'aan ay ku dumaan waxaa ka mid a bay culimmadu leeyihiin saddexda ka soo horjeeda weeyaan sidqiga waxaa ka soo horjeeda waa beenta ammaanada waxaa ka soo horjeeda waa khiyaanada cadaaladdana waxaa ka soo horjeeda waa dulmiga inaad cadaalad yeelataa alla ka cabsi baad u baahan tahay inaad ammaano yeelataa alla ka cabsi baad u baahan tahay inaad runsheega noqotaa alla ka cabsi baad u baahan tahay inaad khiyaanada iska daysaa alla ka cabsi baad u baahan tahay inaad beenta ka dhowrsoonaataa alla ka cabsi baad u baahan tahay inaad dulmiga iska daysaa alla ka cabsi baad u baahan tahay marka kelimadan allaha laga boqo ee khudbad kastoo jimcaba lagu soo daraya lagu khatimaayo kelmad sahlan maaha hadday dadku ilaahay ka baqaan oo ilaahay ka cabsadaan nolosha adduunyada waxay noo noqonaysaa janno ku sug marka nolosha adduunyada janno allah inooga dhigo kuwa ilaahay ka baqana allah inooga dhigo dembigeenna allah ha dhaafo